السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد دمانتين وأنا إسلامية ميل والبا جوجتان iyo goro walbo ay idin tahay. Waa brotherkiini waa da'dii yareed oo idin leh isku soo noqosho wanaagsan. Fideogani wuxuu daaran yahay ama uu ku saabsan yahay ama uu ku socdaa ama aan kaga hadli rabaa in dhowr jeerna hore waa u dhahay oo yacni in aan idinla soo wadaago fideoyo hor leh oo idinka wax ka faa'iidi kartiin, balse hadalkaasi ma uusan noqonin mid markaasi miro dhala. Sidaas darteeda haddana ma rabo in maalin walba aad soo fadhiisto oo aan idhaahdo waxaan idiin soo wadaa fideoyo oo idinka wax ka faa'iidi doontaan. Waxaan sameyn doonaa sidan iyo sidan, waxaan yeeli doonaa sidan, yacni inuu fideogana asigana sidaas oo kale noqdo ma rabin. Waxaad iga barateen inaan idinla soo wadaago barnaamijyada ku saabsan yacni ababka applicationada qaabka loo macnaha markaasi fideoyo loo adeeggareeyo, qaababka heesaha iyo codadka la isku dul saaro, habka yarka markaasi yacni taleefankaaga aad ugu adeegsan lahayd had iyo jeer. Dhalinyaradana waxaan jeclahay in markaas aysan ku fikirin YouTube waxaad ku samaysan kartaa oo keliya ama aad u baahan tahay inaad heshid qalab waaweyn sida laptop, camero, studio inaad samaysatid, yacni meel leerar iyo background qurux badan inaad samaysatid. Waxyaabahaas aad u baahan tahay. Qaab kale YouTube video aad ku duubi kartid ma laha, marnababa ha isdhihina oo niyadiina ha gelinina. Haddii aad tahay YouTuber bilaaw ah oo yacni ku cusub ama raba hadda inuu rajeynayo inuu soo galo barta YouTube-ka, waxaan ku siinayaa talooyin markaasi kugu habboon oo aad ku bilaabi kartid ilaa markaasi aad ka gaari doonto meeshaad u baahan tahay. Tan koowaad, uma baahnid qalab weyn, uma baahnid leerar waaweyn, uma baahnid laptop, uma baahnid oo video aad ku adeeggareysid, uma baahnid qayb dambe background ama yacni meel qurxan iyo waxaas oo kale uma baahnid. Talaabada ugu horeysa aad qaadayso waxay tahay samayso marka ugu horeyso YouTube channel oo ciwaan kuu leh, password kuu leh, aadna ilaabeynin. Tan labaad, qof waliba waxaa ognahay oo inaga mid ah inuu haysto taleefan. Sida hadda aniga taleefankayga ayaan ku duubayaa, camero ma isticmaalayo. Waxaan ognahay inaad haysatid leerarka lagu isticmaalo TikTok-ga oo markaas fideoyada ay dadka iskaga soo duubaan, taasina waa haysataa. Labaad waxay tahay in taleefankaaga aadan ugu baahnayn inaad microphone ku xirtid, bilaa microphone sidaan oo kale aad ku duubi kartid, codkaygana oo fasiix yahay. Intaas haddaa haysatid, uma baahnid qalab kale oo aad adeegsatid ama aad isticmaashid. Xilliyada aad u baahan tahay inaad fideoga duubtid waqtigan oo kale, sida galbihii oo kale, waqti uu jawiga degan yahay, ama subaxdii oo kale, waqti uu asigana jawiga u degan yahay oo wax buuq lahayn, wax agtaada ka shanqarayo uusan jirin. Haddii xaafadiina lagu badan yahay, waxaad fiirsataa waqtiga guriga laga maqan yahay ama jawigiisa u degan yahay. Sidoo kale taleefankaaga markii aad wax ku duubaysid ha u dhigin qaabka noocaan ah ee waxaad u dhigtaa sida tan oo dadabka ah, si geesahaaga iyo yacni afarta gees ay u noqdaan qaab markaasi 16.9 ay u noqdaan oo markaasi qofkii ku daawanayo uusan u noqonin qaab yar oo dhinacahana oo ka madow yahay. Hadda fideoga waxaa ujeedin dhinaciisa inuu ka muuqdo darbigii iyo daaha iyo wax walbo oo gadaasheeda ah inay muuqdaan. Intaas haddii aad samaysid, uma baahnid qalab waaweyn. Waxaan tagi doonaa editka fideoga qaabkii oo edit gareyn lahayd. Yacni kuma dhahay fideoga bilaawgiisa ilaa dhammaadkiisa yacni waa sixi doontaa oo kaa qaldamaya. Si walba profile aad u tahay ama si walba aad u tahay qof yacni ku dheereey qaabka fideoyada loo duubo, fideoga qaab wuu ka soo dhexgeli doonaa. Waxaadna ugu jari doontaa qaab markaasi aad u adeegsanaysid taleefankaaga, ama app la soo deg oo markaasi ku jar qaladaadada, ama taleefankaaga waxaa jirto qaybta gallery-ga oo fideoyada meesha lagu adeeggareeyo iskaga jar. Labadaasba waa u isticmaali kartaa. Fideoyada waa inaad ka reebtaa qaladaadada. Hadallada qaar waxaa laga yaabaa inaad isdhaafisid, ama waxaa laga yaabaa in hadalkii aad rabtay inaad dhahdid oo aad ka soo hormarisid
hadalka aad kasoo hormaysid. sidaasi ayaa markaasi fideogaaga uga dhigi kartaa in yar oo markaasi qalad aanu ku jirin, dadkuna ay wada fahmi karaan. talooyinkaas iyo kuwo ka badanba waan idinla soo wadaagi doonaa. waxaan kugu dhiirigelinayaa haddii aad tahay youtuber yar oo hadda soo bilaabayo inaad adeegsatid taleefankaaga leerkan oo lagu isticmaalo aalada tiktoka, iyo in markaasi waqtiga aa wax duubaysid uu yahay waqti jabigiisa uu degan yahay. taleefankaaga asiguna dhago kugu jirin, waxyaabo kale kugu jirin, si nadiif ah ayaad codka u duubi kartaa. asxaabta dhammaantiin waan idin salaamayaa. intaas in ka badanna waan idinla soo wadaagi doonaa. fideogaanana haddii uu kusoo gaaray waxaan ka codsanayaa inaad ila dhaafin like-ta oo aad markaasi ila garayso. wixii kaloo xog dheeraad ahna inaad qaybta hoose ee community-ga aad igu soo weydiisid, waan kaaga soo jawaabi doonaa insha allah. channelkana haddii uusan subscribe ku ahayn, hadda saaro subscribe si markaasi aad ula socotid barnaamijyada aan soo dhigi doono.